asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aynu kaga hadli doono shir uu duqa caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteeko uu kaga qayb galay magaalada nairobi ee dalka kenya. maanta halkan waxaan isugu kin yeedhay inaan idinka xog waramo shirkii aan ku maqnaa muddada. shirkaasi oo ahaa assembligii koowaad general assembligii koowaad ee hay'adda UN Habitat ay yeelato. shirkaasi oo aynu soo casuumeen iyadoo ay ka soo qayb galeen 193 waddan oo iskaga yimid daafaha dunida oo ka mid ahaayeen madax sare, madaxweynayaal, wasiiro, maayiro, governors iyo qaybaha kala duwan ee mujtamacyada caalamka. ilaa 4,000 oo qof isugu yimaadeen. shirka aan uga faa'iideysanay inaanu ka helo macluumaad wixii adduunka iyo magaalooyinka ka socday iyo waxyaabaha ay Habitat kala shaqeyso dunida oo dhan ay kala shaqeyso. iyadoo aan halkaa dad badan iska baranay, magaalooyin badan aanu iska baranay, insha Allah taala aanu xiriirna samaysan doono. saddexdii cisho hore shirku markuu hawshiisa noogu socotay, maalintii afraad ee shirka heshiisaan muddo dheer daba soconay ayaanu hay'adda Habitat la saxiixanay. adduunyada wax walba waxa ugu muhiimsan qorshaha iyo higsiga iyo himilooyinka ay leedahay ummad amba magaalo leedahay. waxaanu hore u samayn jirnay in DDF-ka 5 sanaba survey degmooyinka iyo xaafadaha laga qaado la sameeyo. balse waxaan muddo dheer ka codsanaynay Habitat iyo magaalooyin iyo cid kale oo aanu xiriir leenahayba inaanu higsiga iyo himilada 20 sano soo socda iyo master plan-ka aanu helo caasimadda. waxaanu heshiis hordhac la galay hay'adda Habitat oon uga baahnayn inay khabiiro iyo inoo keento muxuu ahaa cid inagala qayb qaadata. waxaan isla soo qaadnay in master plan-ka waynu gaari doonaaye qorshaha 20 sano soo socda iyo himilada iyo higsiga halkay sida u ekaan doontaa kiisi in la gaaro. shacbiga caasimadda ay ugu horeeyaan aqoon-yahanka, ardayda jaamacadaha ay ku jiraan. waxaan ka codsanayaa magaalada maayirna ma leh, dawlad hoosena ma leh, mujtamac oo dhan baa wada leh in si maskax furan oo madax furan looga wada qayb qaato barnaamijkaasi oo bilaha soo socda oo dhan lagu shaqayn doono dawladda hoose iyo hadba halkii loo baahdo. hay'adda Habitatna ay noo soo diri doonto khabiiro nagala shaqeeya qorshaha say u ekaan doontaa arkiisi iyo maxaa loo baahan yahay laga qabto iyo halkee laga helayaa wixii lagu qabanayay hawsha. annagu dawlad hoose ahaan waxaanu soo bandhigi doonaa si daahfuran wixii dawladda hoose soo gala, wixii ka maqan, say wax ku suurtagelayaan. dadweynaha iyo cid walibana waxay soo dhigi doontaa qorshaha iyo wixii loo baahan yahay iyo baahida magaalo oo dhan. taasi oo aynu u qaybsan doono in qaybo loo fuliyo. cid kasta oo halkan timaadaana ay qorshahaasi iyo isagoo la sii horumariyo ay ku shaqayso. waxaanu jecelahay inaanu raad muuqda oo qorshaha magaaladu ku shaqayn doontaa ka tagna haddii aan leeyahay. waxaan mar labaad ku celinayaa waxaa jiray dhalinyar aqoon-yahana oo maskaxdooda hore u tuujiyey oo qaybo ka mid ah qorshayaashooda noo soo bandhigay. waxaan leeyahay cid allaaliya ciddii doonaysa inay ka qayb gashaa waxay iska soo diwaangelin doontaa oo ay la fadhiisan doontaa agaasimaha qorshaynta ee dawladda hoose, iyada oo si loo diyaariyo iyadoo qaybana loola kulmi doono aniga iyo khabiirada iyo ciddii kale danaynaysa oo dhani. marka ardayda jaamacadaha iyo aqoon-yahanka laakiinse waxaan ku dhiirigelinayaa inay u diyaargaroobaan hawsha kana qayb qaataan. isdiiwaangelintana ay ka bilaabaan xafiiska
agaasimaha qorsheynta. marka aad leedahay qorshayaasha 20 sano ee soo socda ayaan dejinaynaa dadku waxay isweydiinayaan talo maayarka caasimadda Hargeysa ma mar labaad ayuu isu soo sharaxi doonaa maxaad bulshada arrintaas uga sharxi karaysaa muhiimaddu maaha inaad kursiga adigu joogto waa hadba ciddii iman doontaa ayaa qorshaha ku shaqayn doontaa oo samayn doontaa horumarkeeda iyo in qorshaha laftiisa la sii horumariyo waxaanu jecelahay haddii aanu tegayno maanta ma dhisaar garanayo miyaadse soo sharaxaysaa mise isma soo sharaxaysid laakiinse cid kastoo imanaysa inay qorshe hufan oo lagu shaqayn karayo ugu timaado annana intaanu sii joogno waqtigeyga waxaa laga yaabaa doorashadu waa December taa inaan se sharaxayeen kale waqti kale aan ka jawaabi doona laakiinse qorshahan waa qorshe u imanaya cid kastoo timaada oo ay leedahay dawladda hoose oo ay dadka Hargeysa leeyihiin maayer waxaa jiray shirar fara badan oo dalka dibadiisa aad ka qayb gasheen haddaba shirkan aad ka qayb gasheen Nairobi muxuu kaga duwanaa shirarka kale wuxuu kaga duwanaa madaxda sare ka soo qayb gashay mooyaane wuxuu u muhiim ahaa magaalooyinka iyo sida loo qorsheynayo iyo magaalooyinka wadamo badan oo dhismay waxaa laga yaabaa min 8 subaxnimo ilaa 8 habeenimo inaanu ka qayb geli jirnay 10 season 10 qaybood oo shaqaa oo magaalo waliba ay soo bandhigaysay sidii wax loo qorsheeyay wixii fulay iyo waxyaabaha taas oo magaalooyinka isweydaarsanay wax badan aanu ka sidano muhiimadda ugu badan waxay ahayd magaalooyinka iyo wax laga qabto iyo magaalooyinku maxay iskaga dayan karaan hay'adda UN Habitat ayaad heshiis la gasheen heshiiskaasi muxuu faa'iido u leeyahay caasimadda heshiiskani wuxuu koow yahay heshiiskani dhaqaale badan maaha badankiisu wuxuu ku baxayaa fulinta hawsha qorshaha iyo khabiirada lacagtooda laakiin wuxuu muhiim u yahay heshiiskani sidii weel u talan lahayd Hargeysa weelkaasi oo noqonaya weelkii wax lagu dooni lahaa hadday tahay gudaha iyo hadday tahay dibaddaba marka la qorsheeyo waxa loo baahan yahay waxaas la fulinayaa iyadoo aqoonyahankeedii iyo dadkeedii Hargeysa ka dhinacyada ka fadhiyaan waxaas waa wixii cashuur ka soo baxay cashuurta la qaadaa ma ku filan tahay mid wax lagu qaban karo mise maxaa waxaanu ag dhigi doonaa magaalooyinka waxa la isu soo gudbiyaa dunyada waxa laaliyo waxa tax la qaado cashuur la qaado shirka inaan ka hor dhaca ma doonayo waxa taa la soo bandhigi doonaa maxaa cashuur la qaadaa seesa wax loogu qabta oo noqonaysa la xisaabtan iyo daahfurnaana noqonaysa maxaynu marka qorshe sameystaa hay'adaha caalamiga ayaa loo gudbinaya waayo markii hore waxaanu samaysan jirnay DDF sanad 5 sano caynka kana waa qorshe ballaaran qorshaha ballaaran waxa ku sii xisaabtami doona adduunka oo dhan sidii wax loo siinayo magaalada ayaa ugu xisaabtamay markaad qorshaha dheer samayso tusaale ahaan imka waxaanu isweydiinaa biyaha Hargeysa mashruuc aad loo dhaliili jiray oo African 70 fulisay oo qorshaha wuxuu kalifay in qorshaha kolba qayb la soo goosto oo markii hore biyaha laga keenayo Hargeysa la soo goostay dibadda mar labaadkii waxa la soo goostay waxa la istedhigay muxuu ahaa halkee biyo looga helayaa Hargeysa waxa la 5 goobood biyo looga helayaa 5tii goobood waxa la sameeyay midigee deeble ahayd hore hadlay muxuu ahaa Jaleelo iyo eriyadan halkii qoxontigu deganaan jiray iyo ka ugu dambeeya oo ah Buchiti Dam 2030 amba 25ka waxa weey hadii aan Buchiti Dam la xidhin Hargeysa dadweynaha degan biyo ku filan loo heli maayo imika biyo balaarintii baa socotaa magaalada oo imika bilow ah biyihii la keenayay iyo ceelashii iyo wixiiba waa la qoday taasi qorshahaas wuxuu noqday qorshaha muddada dheer iminkana in looga sii hordego in loo doono sidii Buchiti Dam loo xidhi lahaa taasi deedna waxay inaga Hargeysana dhismaheega kale waxay kalifaysaa maxaa wadooyin loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay garoomo maxaa loo baahan yahay waxa taasi oo kolba qayb laga qaadan doono qorshaha si dadka caalamkuna inoo kala qayb galo shirkan waxaad ka qayb gashay adigoo matalaya caasimadda isla markaana haduqa caasimadda Hargeysa waa shir muhiim ah sidaad sheegtay oo caasimadda wax weyn u tari doona marka shirkani maayer ma wuxuu ku koobnaanayaa caasimadda Hargeysa mise wuxuu noqonayaa shir
aad gaarsiisaan gobollada intooda kale si iyaguna uga faa'iidaystaan? hadda waa markii koowaad ee barnaamijkan la hirgelinayo. marka koowaad wuxuu noqonayaa inuu caasimadda pilot ku noqdo oo caasimadda kow ka bilaabmo tijaabo ku noqdo maadaama anaguna dalbanay. mar labaadkana waxay noqon doontaa in magaalooyinka kale insha allahu tacaala uu sii gudbo. daawad halkaasi waxay noogu eeg barnaamijkii ku saabsanaa shirkii caalamiga ee maayarka caasimadda Hargeysa kaga qayb galay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.